cuqaal iyo madax dhaqmeed ka soo jeeda beelaha Samaroon ee degan gobolka Gabiley ayaa shir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada Gabiley gaar ahaan hotel Galoole ee magaalada Gabiley waxay taageero u muujiyeen musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex injineer Maxamed Haaruun Maxamuud oo u tartami doona golayaasha wakiilada Somaliland iyagoo baaqna u diray qaybaha kala duwan ee dadka beeshaasi ka soo jeeda uqaasha iyo odayaashaasi ayaa sidoo kalena ka hadlay arrimo doora waxaana hadaladooda ku bilaabeen sidani wax shirkan jaraa'id aan maanta qabanayna waxaan ku cadeynaynaa mowqifka ay beeshan ay ku leedahay gobolkani oo ah mowqifka musharaxooga golaha baarlamaanka beeshan Samaroon ee gobolka Maroodijeex markii aan dhinac walba hore looga eegay reer walba waxa jira inuu dhexdiisa markii hore isku wada qabtay reer kastaana wixii soo haray u wada codiyay ara wixii iyo wixii buuq xilligeeda weeyaan gobolka weligeed Maroodijeex waxay noo soo bixi jiray hal xildhibaan oo ahaa kii Cali Gabiley ee Hargeysa ilaa laga codeeyay magaalada la yiraahdo Wajaale ahmiyada weynina labada gobol ay ka soo baxday iyay ahayd iyo waxa kaasi waxaan leenahay maantana kiiba inoo taagan dadkuna way isqabtaan markay isqabtaan maanta nin kale oo labaad oo xisbiga laga sharaxan oo beeshii ma jiro waa ninka kaliya wax taagan wixii khilaaf ahaa iyo waxaas waa halkiisa waa xilligeeda waxaase taagan inaan ka taagan ee baarlamaanka u taagan haddii uu dhaco beesha dhacday weeyaan macnaheedu beeshii ayaa dhacday weeyaan macnaheedu la oran maayo hadda waa la isku cadhoonayo saas ku dhacay iyo la oran maayo waxa la oran beeshii ninkeedii way soo saari kari sidaa darteed waxaan leenahay bulshada aan caqaashan nahay ee odayaasha u nahay ee ka kooban Maroodijeex oo Hargeysa Gabiley iyo ilaa iyo Arabsiya iyo ilaa iyo Wajaale waxaan leenahay oo cod dheer ku leenahay arintaasi inaad sidii loo soo saarayo loo guntado oo falowgeed la qabto laba inaan golaha deegaanka la socda labada inaan golaha deegaankii waxaan aaminsanahay hore inay soo baxayaan nidaamkoodu habaysan yahay halka baarlamaanku laakiin waa baarlamaanka xasaanada leh ee awoodda leh ee aynu u baahanay magaceena sheegi kara ee aynu ku kulmi karnaa Maroodijeex waa ka kii hadaynu maanta nidhaahno khilaaf baa dhexdeeda iyo buuq baa dhexdeeda ana de inaga socon mayso hadhow la oran maayo way buuqsanaayeen oo saasay ku dhaceen la oran maayo laakiin waxa la oran kee dhacayo ha reebel buu hal baran beelaha waxaan leeyahay war dhabarka la ilaaliya hadal iyo eed xilliga la galaa waa xilliga nabadda lagu jiray ee waxa kala hagaagaan ee wax kala miirmaan baa eed laga hadla arina waxa laga wada hadlaa markuu joogo maanta arin baa taagan arinka taagan waxa weeyaan laba inaan nooga tagnay hal inan bay noo taagan oo la isla garanaya qalad iyo saxna halka inan yaa lagu qasban yahay haddii uu dhacana aan ku ceebaysanahay hadduu soo baxana guusha lagu wada leeyahay waxaan leeyahay inanka la yiraahdo Maxamed Haaruun ee ka soo baxay xisbiga wicid iyay taageeradeen ku midaysan tahay kaasaan ku midoobeynaa haddii aynu ka ku midoobi weyno oo uu ninkaas meesha ka baxo waa beesha meesha ka baxday weeyaan waxaan ku celinayaan cod dheer ku sheegaya anigoo la hadlaya Wajaale ee Hargeysa ee gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley labadaba aan la hadlaya waxaan leeyahay waa eedu waqtigeed laakiin imika waxa la joogaa codkii oo inooga hareen saacado 12 cisho ka bacdi waxaan way dhamaan waxa soo bixi doona reebel yaa soo baxay iyo reebel maxay iyo reebel sayir iyo reebel buu dhacay reebel way dhacay waxa soo bixi doonta guusha dambaan leenahay ee khilaafka hore waa la dhameyn karaa haddaba waxa weeye arinteen khilaaf waqtigiisa haynoo ahaado codkuna han ku soo saar maanta ninkii noo taagan maadaama nin labaad aynu hayn oo aynu ka u kali hayno السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين marka hore waxaan doonayaa inaan ka hadlo saddex qodob waxaan habalyeeynayaa dhammaan xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland musharaxiintooda
guud ahaanba waan salaamaya runtii waxaan ku salaamaya waa dhalinyaro boqolkiiba boqol mutacalimiina aad iyo aad baan u hambalyeynaya haddii ay guuleystaan waxaan filayaa inay dalka si dimuqraadiyad iyo cilmi iyo cadaalad ba ku soo dabaali doonaan intaa haddaan ka gud waxaan doonayaa inaan ka hadlo xisbigii kulmiye iyo beeshii gabiilay ee Gadabuursi halkuu xisbigii kulmiye dhigay baan doonayaa marka hore inaan ka hadlo waxaan doonayaa kale inaan doorashada gobolka Gabiiley Gadabuursiga degan ka hadana waan doonayaa waxdii aan ku horeeyo xisbigii kulmiye horta nibba waxa la yiri nin caana u soo lisay dibeetan ninkii markuu caanaha ninkii uu soo lisay buu ninkii caanaha loo soo lisay iska wada cabay ninkii wuxuu dhiniyo caanaha sidaan kuugu lisay ugu ma dambayn horta xisbiga kulmiye sidoo beelaha Gadabuursi ee Gabiiley degan ay ugu liseen ugu ma hambayn waan ogeyno wuxuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland nibba qaar baa oran doona fartaydaanayad horta cid fartooda ee Gadabuursiga gobolka Gabiiley degan baa ayaa jira haday cid far eedi lahayd cidaas ayagtay sababtu waxa weey gobolka iyo degmooyinka ku hareeraysan ee Gabiiley qof shaqaale ah oo beelaha Gadabuursiga uga diiday Gabiiley degan dhalinyartii wax ka baratay jaamacadaha ka soo bartay dhulka muxuu ahaa hawiyaha iyo majeerteenka ay qaxooti ku yihiin iyagoo qalinkood iyo mutacalimiina horta taasi waa dib waxaan beesha caalamka u sheeganaa korjoogtada doorashooyinkana u sheeganaa in gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka sii beesha Saacad Muuse inuu xasuuq siyaasadeed u geystay beelaha Gadabuursi ee gobolka Gabiiley degan markuu hal qof oo musharaxa u diiday uu hal qof oo maamul u diiday uu hal qof oo shaqaale u diiday hadee taasi waa mushkilad hadaba sidaa haday tahay waxaan leeyahay beelaha Gadabuursi war waad aragtaan Soomaalidu waxay tiraahdaa Soomaalidu yaani caana daatiba dabadooda qabay waxaan idin leeyahay beesha Gadabuursi waxaan leeyahay niman yahow ilaahay suldaankii Ibraahi Jaamac Samatar ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto runtii meel fiican buu wax dhigay markuu meeshii wax dhigana nima faraha laga falay baa ka daba tagay oo halkii wax ka qaaday nimankaasi dabadeetana isagoo sii socda suldaankii oo xanuun qaba baa arintaasi xanuun labaad ku noqotay waa kii Turkiga ku dhintay ninkii ay geeyeen meeshii kalena uu dhintay labadaan baa Allah u naxariisto war Gadabuurso ishambe baan leeyahay oo arinka isku hambe yaani waxa la yiri waagi saylac baa laba nin isku laayeen baa ninna maax baa la oran jiray ninna waxa la oran jiray jaamac dabadeetana labadiin markay islaayeen baa maalintii ka dambeysana maax iyo nin kale islaayay jaamac baa weheliyo waxa war jaamac maxaad ugu heelinaysaa maax wuxuu yiri maaxaysi joog warnimada arrinkii kale haynoo sii joogay niman yahow beelaha Gadabuursi ee gobolka Gabiiley degan waxaan ka codsanayaa inay inanka injineerka ay Maxamed Haaruun soo saaraan waxa la yiri gamca geel jira hoos baa loo dhaqaa yaani walaalyeelkii baa dhaqa arrinkaasi arrinka sida sibraarka ay noogu xidhnaado markuu caydhkaasi qaado geedaha waaweyn ee ku yaal deegaanka Buseed baynu arrinka ku furfuri arrin walba sidiisaynu u dhigi gabadh iyo wiilba gobolka Maroodi iyo Hargeysa wixii degan Gabiiley degan waxaan ka codsanayaa inay si degdeg ah oo garaba oo gaashaana u soo saaraan inanka magaca Gadabuursi ku sharaxan inankaas magaca Gadabuursi buu ku sharaxan yahay magac kale kuma sharaxana gobol kale kuma sharaxana magacaas uu ku sharaxay waa in arinta si mowqif oo midaysan loo sameeyo waxa kale oo doonayaan halkan baa uga diraya hablaha Gadabuursi ee gobta ay reerahan u gacalkanaay qabaan waxaan ka codsanayaa waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa inaan quruxdeed waa walaalkii ninka doortaan ilaahay adfaantaan inankii noo faanayna ka doorta assalaamu alaykum waraxmatullaahi annaga oo odayaashii beesha Maxamed Roodijeex Gabiiley Arabsiyo wajaale intaba iskaga nimidna waxaan halkan ka sheegaynaa Soomaalidu waxay tiraahdaa kan loo adin ka dhuunto kii kale uu soo gaaray waayo maalin bay qadaalood oday baa yiri wareede tan sila cabilaysa ma ahayno waxa weeyaan dawaayo atiibu oo maxaad halkan uu galo uga goosan weydu waday maalin la maqnaanayso ma tii socono soo socono adiguna waxa weeyaan hadal Soomaalidu waxay tiraahdaa nin badiyayna kama wada tagin nin yareeyna ma dhamay bale waxa weeyaan alxaasil waxyaabaha dhaliisha ee dhan walba laga sheegayo ee la isku haysto waxa weeyaan macluumaadka binta loo sii sidoo ka baqtiyaa waxa weeyaan waqti gaaban halkee gaaban waxaan ku gabagabaynaynaa waa dad badan oo dar kaliye leh
ayaanu nahay waxaan ku soo gabagabaynay tii waqtigu gaaban yahay waxaanu leenahay ina kaasi ama bari ha noqoto ama galbeedka arinta deegaanka gabilay ay xukunto waxa la wixii jooga sidoo odayga horeba sheegay hablaha la qabano oo ku darsanay anu ina reerkoogu waa ku toban baa la yidhi ina reerkoogu toban bay ku taalay waxa weeyaan waxaan isku raacnay maxamed haaruun inaan soo saaro haddii ilaahay yidhaahdo hadduu dhacana beeshu way daadatay hadduu soo baxana waa hineenni annagu waxaan leenahay hadalkaasi sidaasuu nagaga gaban yahay badidiisu ma wanaagsana sidaasuu nagaga gabagaban yahay sidaasaan ku faraxsannahay sidaasaanu ku dhammaynaynaa annaga oo miirkaygiiyo maankayagiyo miirkaba qabnaa sidaasaanu ku gabagabaynaynaa waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba muuqaal maqalka caalamiga Kalson TV gobolka cagaaran ee Gabiley